dalalka waqooyi ee dunida waxaa ka jira sheekooyin ka qisooda doonyo iyo maraakiib meelaha iska yaala kuwaasoo yaala marin biyado dhulka hoostiisa waana meesha dhulka hoostiisa oo ah meelo laga helo xayawaanaad iyo dhir dhumucdoodu aad u waaweyn tahay waana dhirta ay jiridoodu dhiganto guryaha aynu dhisanno oo kale halka sidoo kalena ay dhulkaa degan yihiin dad qaro waaweyn oo dherarkoodu gaadhayo 3 mitir ilaa 4 mitir mid ka mid ah qisooyinka dhulkaasi waxaa soo wariyay ninkii riwaayadaha samayn jiray ee Wells Jode oo ahaa qareen suxufi iyo siyaasi reer Latin America waxaana uu noolaa bartooyinka qarnigii 19aad ee taariikhda miilaadiga isagoo qisooyinka dhulka ka soo bandhigayay buuggiisii ugu magac daray dariiqa dhulka hoostiisa waxaana sanadkii 1908 dhacdada mid lamid ah soo bandhigay qoraagii reer Holland ee Olaf Jansen qoraaga oo dhanka badda uu safray marinka laga galo dhulka hoostiisa ee ku yaala qudbiga waqooyi ee dunida tafaasiil laga bixiyo qisooyinkaasi waa mid loo arko inay faduul u tahay laakiin waxa muuqda waa inay ahaayeen sheekooyin isa soo shabahaya waxaana jira qisooyin kale oo waaweyn oo iyana u soo qaabay sheekooyinkan aynu ka hadlayno ee ku saabsan wixii ay la kulmeen raggii dhulka hoos u galay ee dhanka kale uga baxay qisooyinka mid ka mid ah waxaa laga soo wariyay shucuubta koonfurta dunida ku nool ee Makoksi oo ah qabaa'il ku nool keymaha Amazon ee dalka Brazil waana dadkan wax xiriir la xusi karo la sameeyeen mujtamaca dunida intiisa kale qisooyinka yar ee ay soo wariyaana waxay u muuqdaan kuwa run ah sanadkii 2015 ayay ahayd markii ay galeen bohosha weyn ee dhulka hoose u daloosha waxaana ay sii socdeen masaafo 15 maalmood oo luga xilligaasina waa markii ay gaadheen dhanka kale ee dhulka halkaas oo ay ku nool yihiin rag dhererkoodu gaadhayo 3 mitir iyo badh waxaana lagu sheegay inay yihiin dad wanaagsan laakiin ay lama huraan tahay inaad ixtiraamto dhaqamadooda iyo caadooyinkooda qabaa'ilka Makoksi ee keymaha Amazon waxay ahaayeen kuwa ilaaliya oo gaarka ka haya albaabka laga galo dhulka hoostiisa iyagoo ku ilaalin jiray in aan cidina u gudbin waxyaabaha ay ka sheekeeyeen waxa ka mid ahaa markii ay gudaha u galeen bohosha in ay si adag uga daadigeen jebelo buura oo qaarkood 80 mitir gaadhayeen waxaana ay babacyadii buurahaas ku dhamaadeen maalintoodii saddexaad ee gelitaanka bohoshaasi waxa kale oo ay sheegeen in mantaqadaasi ay ilaysu yihiin kubado wareysan oo midiiba ay madxabxaba dhumucdiisa leeg tahay kuwaas oo sida cadceedda oo kale u iftiimiya maalmihii afraad iyo shanaad waxay raggaas waayeen quruxdii iyo qaabkii ay jirkooda ku yaqaaneen waxaana fududaaday miisaankoodii taasoo u saamaxday inay si dhaqso ah u tallaabsadaan qabaa'ilka Makoksi waxay ku adkaysanayaan in 5 maalmood markii ay socodkooda sii hayeen bohosha dhexdeeda inay arkeen boholo kale oo aan cidna gudahooda sii eegi karin maalintii lixaad waxay la kulmeen dhul beereed aan sidaasi u weyneyn sida beeraha cambabayga iyo muuska iyagoo ergada ku socotay shacabka Makoksi ay sii wadeen socdaalkoodii dhulka hoostiisa waxaana ay meelo badan ku arkayeen ramaaska iyo dhirta ka baxday laakiin taa macnaheedu ma aha inay mantaqadaasi guud ahaanteed cagaaran tahay waxaana jira meelo khatar ah oo ay tahay inaad ka taxadarto meelaha oo ay rogmanayaan dhagxaanta ololaysa ee nooca volkaanayaashu waxay socdaalkooda sii wadaanba raggii ka socday qabiilka Makoksi waxay gaadheen meel dhulka hoostiisa oo ay ku nool yihiin ummadda xajmigoodu dheeraadka yahay waxaana ay ku daaqadeen cuntooyinka ay dadka waaweyn cunaan oo ay ka mid ahaayeen midhaha tufaaxa oo xajmigoodu leeg yahay madaxa dadka waaweyn iyo midhaha canabka oo midiiba uu leeg tahay sacabka gacmaheena waana khudradda ay weligoodba dadka waaweyn ee dhulka hoostiisa ku nool hadiyad ahaanta ugu soo diri jireen shacabka Makoksi ee ku nool dhulka korkiisa inta ka bacdi raggii ka socday qabiilka Makoksi waxay damceen inay dib ugu soo laabtaan dunida korkeeda waxaana jirtay inay Makoksi ahaayeen ilaalada albaabka dhulka hoose oo ah mid khayraad badan oo dihini ka buuxo waana qisooyin ay taariikhyahanada qaarkood ku sheegeen sheeko xariiro laakiin shacabka Makoksi waxay taariikhaha isbedelaya oo dhan ku adkaysanayaan in ay sheekooyinkan yihiin kuwa xaqiiqo ah oo aan wax daahi saarnayn waxaana isu haystaan inay yihiin ilaalada gaarka ah ee albaabkaasi 3 nin oo u dhashay dalka Britain ayaa gaaray gobolka Amazon ee dalka Brazil si ay halka uga soo urursadaan dheeban iyo macaadin kala duwan waxaana jirtay inay galeen bohoshaasi laakiin indhihii loo lahaa oo aanay dib u soo noqonin waxaana dhacday in dadka miisaanka iyo dhererka weyn ee camaadaqada ee dhulka hoose ku noolay inay ka caroodeen qabiilka Makoksi kuna eedeeyeen inay marikoodii u soo gudbiyeen dad ajaanib oo damac adduunyo darteed daaqilka soo galiyay taasi waxay keentay in xiriirka labada dhinac xumaado oo gacan qabashadii iyo taageeradii ay
camaalaqada dhulka hoose ku nool siin jireen qabiilka Makoogsi ay istaagto deetana ay macluul baahsan ay asibto qabiilka Makoogsi waxaana ay isku dayeen inay qabtaan dhanka hoose si ay qolada qarada weyneed taageero u soo weydiistaan laakiin markii ay bahooshii hoos u siiyeen muddo 4 maalmood waxay la kulmeen dariiqii cidhiidhka ahaa oo la baabiyay oo la xiray xilliga qaar ka mid ah ergadii Makoogsi waxay goosteen inay dib u noqdaan halka qaar kalena sii wateen socodkoodii iyagoo ka talaabay marin kale oo buuro dhaadheer dushooda laakiin markii ay sii maqnaayeen muddo bilaa waxa dib dhulka korkiisa ugu soo laabtay mid ka mid ah ergadaasi kaasi oo sheegay inay camaalaqadu ku xukumeen raggii kale intoodii kale inay la noolaadaan inta noloshooda ka hadhay iyagoo kaga aargudanaya oo ku ciqaabaya dadkii ay saddexda Ingiriiska ay ka mid ahaayeen ee ay Makoogsigu u ogolaadeen inay galaan dhulka hoose ee camaalaqada sanadkii 1909 ayay ahayd markii Ingiriisku bohosha u dareen in lagu magacaabi jiray Alan Moore kaasoo waajibaadkiisu ahaa inuu soo hubiyo jiritaanka dad dhulka hoostiisa ku nool iyo inuu soo ilaaliyo godadka ay tuuran tahay dheemanta iyo macaadinta kale ee ay Britain u baahan tahay xilli dambana haween iyo caruur ka tirsan qabiilka Makoogsi ee reer Brazil ayaa damcay inay ogaadaan wixii ay ku dambeeyeen ragoodii sahanka loo diray iyo saddexdii nin ee Ingiriiska ee sida ay bohosha u galeen isha loo lahaa halka sidoo kalena aanu haweenka iyo caruurta ka marnayn hunguriga ka hayay dheemanta la sheegay inay ka buuxdo halkaasi markii ay haweenku iyo caruurtaasi ku dhawaadeen halkii albaabkii hore ee xidhmay oo ahaa waxa dhacay gariir buuruhu ruxmeen oo xashiishkii dul saarnaana soo daatay taasina waxay keentay inay dib u soo laabtaan warbixinaha qaarkood waxay ku adkaysanayaan in dhulka hoose ee lagu nool yahay uu yahay mid ay ka muuqdaan calaamado iyo astaamihii ilbaxnimooyinkii dunida ee qadiimka ahaa